السلام عليكم ورحمة الله. بوابة الجحيم كون سغال بقول تضباطن iyo kowgii waqtigii aadku u socday kacdoonkii soo saaridda gaaska dabiiciga jarraafadihii midowgii Soviet waxay u jahaysteen dhanka waqooyi ee wadanka Turkmenistan waqtiga oo Turkmenistan ay ka mid ahayd midowgii Soviet kadib waxay isku dayeen inay ka qodaan shidaal meel ku taal gobolka la yiraahdo Darwiiz laakiin waxa ku dhacay wax la yaab leh qodaalkii ay wadeen waxa ku fakatay mid ka mid ah jarraafadihii ay wateen godki kadib waxay isku dayeen shaqaalihii iyagoo ka cabsi qaba inuu soo fakado gaaska la yiraahdo gaasul mithaan oo la kiimiko halaagta wixii noole wadanka jooga dhamaantii waa hadii aan laga shaqeynin kiimikadiisa waxay isku dayeen dab inay geliyaan ayna ku baabi'iyaan gaaskaas laakiin waxa ku dhacay wax la yaab leh kabti ay ka qodahayeen gaaska waxay noqotay god dhererkiisu la eg yahay 70 mitir balarkiisuna la eg yahay 60 mitir hoosna u qodan 20 mitir oo dabkiisu aana damin maalin iyo habeen wax la yaab leh ayaa ka fakaday waxa la isku dayay marar kala duwan in la baqtiyo godkan sanadii 2010 waxaa booqday madaxweynihii wadanka Turkmenistan wuxuuna amar ku bixiyay in la dahaaro godkan afkiisa laakiin maanta oo la joogo waxba waa ka suurtagali waayay waana tabtiisi godkan wuxuu ka mid noqday 5 meelood ee ugu la yaabka badan caalamka waxa kale oo uu noqday meel ka mid ah meelaha ugu booqashada badan wadanka Turkmenistan waa Bawaabatul Jahiim